gobolka Solo weheliye taliyaha qaybta koobiye soddonada ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo cutubyo ka tirsan ciidanka qaranka ayaa howlgal ballaaran ka fuliyay deegaanka Yeeli dhankiisa hawdka kaasoo laga fuliyay deegaano sharci darra oo halkaasi ay ku burburiyeen gudoomiyaha gobolka Solo halkaasi ku hadlay warbaahinta ayaa sheegay ayaa uga digay cid kastoo isku dayda deegaano hor leh oo sharci darra in aan la ogolaan doonin joogna ama aad arki doontaan cid kastoo daawo doontaa waxa u dhaxaysa 5 magaalo oo ah Dhilaalo Ceegaag Arraweyn iyo Yeeli deegaan kamid ah ayaa waxay rabaan inay deegaameeyaan oo ay magaalo cusub ka sameeyaan wada aragtay ciidanka qaranka ayaa aasaya oo saa ka soo jarmaaday magaalada Laascaanood barkadii kale waa taa la soo aasay meelo kale la soo calaamiyay waan aragnay waxaan u sheegnaa cidii halkan qoday ama ku fikirtay inay deegaamayso 4 magaalooda inaanay suurtagal ahayn inaan la yeeli karin inaan wax aqal gala oo bini'aadamku qaadan karay aan ahayn maadaama ay tahay 5 magaalo dhexdood oo ay tahay meesha xooluhu ay daaqaan ama 5 magaalo xoolaha lagu dhaqdaay mataqaanaa ku soo foofaan suurtagal ma noqon karto in deegaameyn cusub la sameeyo siyaasadda mataqaanaa xukuumadda ama bolosiga wasaaradda arrimaha gudaha u yaala iyadana waxa mamnuuc ah in deegaameyn cusub la sameeyo annagoo fulinayna amarkii wasaaradda arrimaha gudaha gobol ahaan waxaan marnaba aqli galahayn ama aan suurtagal ahayn ama aan lagu fakari karin in la sameeyo deegaameyn cusub oo hor leh iyada oo ay deegaameynti bateen iyada oo la waayo xoolihii meesha ku baxsan lahayn xilliga abaarta iyadoo qof kasta wax xasuusan karo abaartiina soo martay xooluhu waa cunay inay waayeen marka waxaan u sheegnaa oo halkan fariin media u marinana cidii halkan qoday inay yihiin dambiilayaal inay yihiin mataqaanaa kuwa mataqaanaa hadii Ilaahay ku roon yahay baabiinaya deegaanka anigoo ku hadlay afka xukuumadda iyo afkii barasaabka gobolka Sool oo aan anigu ahay waxaan u sheegnaa dadweynaha kale ee deegaamadan ku nool inay soo sheegaan meelahan oo kale cid qodaysa ama deegaameyn cusub sameynaysa iyadoo aan marnaba suurtagal ahayn waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad uga dignaa oo ku adkeynana cid deegaameyn cusub ku tala gashay inay sameyso inaanay suurtagal ahayn inaan laga yeeli doonin inta kadibna wuxuu kulan ballaaran kula qaatay degmada Ceegaag odayaashii wax garadka deegaankaasi soo kala hadlay sidii looga hortagi lahaa deegaameynta hor oo sharci darra ah laga deegaameeyo deegaankaasi waxa kaloo baaqu tiray dadka reer guuraaga iyo dadka degan deegaanadaasi inay ka hortagaan cid kastoo isku dayda in la deegaameeyo dhulka xoolo daaqsimeedka ah ee deegaankaasi وبرخ عمر أحمد وبانت قرن كجمهورية الصوماليلان لا سعانات